bisha Rabiicul Awwal ay tahay 22 sanadka 1444 hijriga kuna beegan 18 bisha tobanaad 2022 halkan oo ah xafiiska musaalaxada iyo dacwada iyo khayrka looga shaqeeyo oo ku yaala magaalada Muqdisho suuqa Bakaaraha eryadiisa waxaan iskugu imaanay arin muhiim ah oo aad iyo aad u qiimo badan oo ku saabsan dhibaato dhacday 40 sano ka hor xilli 40 sano ku dhow dhibaato dhacday oo maanta xalkeedii halkan ilaahay uu noo qadaray inay ka dhacdo. waxyaalaha ugu khayrka badan ee kulumadana waxaa ka mid ah kulamada islaaxa iyo laba qof oo walaala ama laba qabiil ama laba kooxood oo walaalaa oo shaydaan ka dhex shaqeeyey lagu hagaajinayo. nabigeenna suubanna sala allahu calay wasalam wuxuu ku tilmaamay ma iniin sheegaa wax ka khayr badan salaad sunnaa sadaqo iyo soon. wuxuu yidhi waa islaaxu daatilbeyn. dad walaalaa oo dhexdooda islaax la dhigo waxuu ka khayr badan yahay ilaahay agtiisana looga jecel yahay salaado sunnaa soon sunnaa sadaqaad sunnaa kulli ilahay agtiisa waa looga jacayl badan yahay. waa camal aad u weyn. waxaa xiise gaara laakiin dhacdadan u yeelaya geesinimada iyo dhiirashada cabdinuur maxamuud diiriye tooxow oo runtii la dhihi karo geesi qofkaasoo kalea la yidhaahdaa. ninkan la yidhaahdo cabdinuur maxamuud diiriye aad iyo aad u nasiib badan yahay. nin nasiib badan waaye. anugu adeerkiis baan ahay, nabadoonkiisina waa ahay. runtii mana maqal inuu nin dilay, weligay ma maqal. waxaana laga joogaa 40 sano oo dhowdhow ayaa laga joogaa. ilaahay baa waafajiyey, baadiyow ka yimid, xamar baa igu yimid, jira loo keenay. wuxuu yidhi ninkaasaan dilay. ninkaasna waxaa la sheegay inuu ka dhintay 10 caruura iyo 2 dumara inuu ka dhintaana loo sheegay. waa uu raadsaday. markuu raadsaday wadaad la yidhaha sheekh ciise oo ducaqaba oo nin shiikh ah ayuu soo wakiisheen. shiikhiiba wakiishay. waa u nimid. markaan u nimid qasqaasuu isku dhiibay. qasqaastiina waa ka cafiyey. ma garatay? xoolow ku cafiyey. xoolo diyaana lama siin oo diya maanta oo xaqa lama siin, laakiin sibirsiin baa la siiyey. waxaanu digaynaa ummadda islaamka oo gacanku dhiiglaha nin walba ninkuu dilo waa ogya, qaraabadiisina waa yaqaanaa. waxaan leenahay dadkaas ha isdhiibeen, qaraabadii ha isku dhiibeen. waxaan adduun waaye waana laga tegaa. maantana garabuu helayaa, ama dadkii uu dembiga ka galow ka helayaa, ama qaraabadiisii wax ka bixidou helayaa. ha isdhiibeen. nin walba ninkii uu dilay qaraabadiisii, dadkiisii, awlaaddiisii dhaxaldamka lahayd ha isku dhiibo. amaani raxaan 38 sano mar laga joogo ayaa nin igu magac yeeshay. waa joogi waayey. kuleyl iyo balaayo alla igu furay. ugaan joogi waayey. waxaan idhi aakhire nina kaagama horeeyo. waa aan imid. waxa weeye raggiyaan raadsadhay. ninkii aan aaya wax iga gaareen ilmihiisiyaan raadsadhay. waa aan helay. niman fiican alla ka dhigay. ilaahay jannadii ha siiyo. iyaga iyo ninkan dilaba ilaahay jannadii ha siiyo. ummadda soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa gacanku dhiiglow intaad nooshahay inaad fursada haysato inaad ninkaad haqa ka qabtay oo weli damka ahay aad isu dhiibto, ama ha ku dilo ama ha ku deysto ama ha ku gato. xoolihiisaad ka mid tahay. aakhire waxba kaagama horeeyaan. waxaan ku gebagabanayaa culummada meesha joogta si walbaba ha ahaadeen ilaahay jannadii ha siiyo. haddana jannadii allah ha siiyo. ciise jannadii allah ha siiyo. ninkii aniga wax iga gaarin jannadii allah ha siiyo. intaan noolana sadaqa inaan u baxshaan rabaa. ilaahayna inaan u baryo. ilaahay baa mahad iska leh. mahad dhammaanteed awalkeeda iyo aakhirkeedaba ilaahay baa iska leh. nuugu nimceeyey nimcooyin aan la koobi karin. allahaasaan mahad celinaynaa. uma dadka iskugu yimid halkan oo culummada sheekh nuur cali jaamac oo ugu horeeyo, sheekh cabdullaahi barakaad, nabadoon cismaan, iyo akhyaarta kale iyo ragga noo fududeeyey inaan aaladan yacni ku gudbinno yacni arrintayada oo u mahad celinaynaa dhammaan. intaas ka gadaal magacayga waxaa la dhahaa aniga ciise cabdiraxmaan wehliye. awowgay weliba wehliye geesooda loo aqoon jiray. aabbahayna cabdixiiray yaa la dhihi jiray. dadku saasay mujtamaca iyo dadka aan la degno iyo qaraabadu ay noo yaqaanaan. xilli laga joogo
taqriiban 38 sano 1985 iyo aabbahay iyo laba adeeryaasheeya iyo nimaan ilma adeernahay iyo laba nin oo kale oo qaraabanahay iyo xoogaa yacni dadku xoolaha lumi jiray xoolay raadsadeen waxay u raadsadeen dadka deriska qaybo ka mida dadku waxbay iska degdekanay jireen jahli iyo haddii la kurinay dadka waxaa ku jiray waxyaalo maaragtay yacni aan sidaan maantay fursadda la haysto iyo jaaniskan diinta lama haysan yay raadsadeen dakano nin ka maqneed oo nin aan 10 oday kala tirsanaa uu dilay iyaa raggaas loo soo weeraray markii la soo weerarana 3 nin oo aabbahay ka mid yahay oo adeerkii aabbahay la dhashay oo da'dii ka mid oo ka mid yahay iyo nin kaloo qaraabanaha meeshii lagu dilay adeerkii kale oo aabbahay la dhashana waa la dhaawacay nimaan ilma adeernahana waa la dhaawacay wixii dadka raggii meesha aaday hal nin wax fiyo ka baxsaday nasiib wanaag raggii muddo yaa la joogay annaga wax kamaana aqoon shaksi kamaana aqoon laakiin famiil ahaan iyo shufa ahaan waa u maqlaynay mar hadda yacni laga joogo bishii hadda sanadkan hijriga bilowgiisa muxaram yaa waxaa noo yimid in la yidhaahdo cabdinuur maxamuud diire toxow wuxuu yidhi ninkii cabdi weheye anaa si qaasa u dilay isagoo dhaawac ah yaan dilay anugu gooni aan u dilo oo gacantaydu ku baxay dhaawac uusan u dhimanayn uu qabay markii anuu ugu baxay waxaan rabaa inaad arrintaas ama iga qasqaasataan ama ay cafisaan ama weliba xoole ma lihiya haddii aan dadka wax ka soo helo qaraabada hadda ii dirtaan diyana intaan noolahay wixii aan heli karaan keenayaa sidaasuu na soo gaarsiiyey annagu tirada waxaan ahayn 11 qofood hal qof aan naga dhintay carruurna kama tegin weliba nasiib wanaag oo agoon hadda uu ka tegey oo annagu aanan mateli karinoo ma jirto oo saqiiraa intayadii kale waa noolnahay intii afkooda anoo ku hadlayan waxaan horta bal qasqaas waa laga cafiyeye diyaan kaa rabnaa isku kaana keen odayaalna ii keen odayaaluu ii keenay uu ka mid yahay nabadoon cismaan waxaan ku ballannay halkaana xaafiiskaana isku qaabilnay halkaanu ugu yimid wuxuu yidhi ninkaasaan ahay haddaad ninkaas tahay waxaan rabaa inaad iqasqaasato anna waxaan qasqaas waa laga cafiyey maanta wixii ka dambeeya horta qasqaas iyo dakano kama baqaysid adiga iyo ehelkaaga iyo owlaaddaada midna qasqaas nooga baqi maysid diyaan kaa rabnaa adugu waa naga tagan odayaashii waa noo yacni wada xiriiri jirnay hadda dhow iyo waxay noo keeneen lacag yaroo samarsiis ah oo qarin maynee 10 kuna annaguna intuusan noo imaanba waxaan go'aansannay waalidkii iyo ilmihii iyo dhammaanteen inaan ninkaa cafino li'annahu aabbaheenna noo soo noolaan maayo annagana maanta wax nagama maqna aabbana waktigiisuu ku dhintay annaga iyo asaga markii la fiirsana asagaa dhib qaba oo kurbaysan inaan annagu kurbadiisa siday u yaraan lahayd aan ka qayb qaadan